wafdu uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur isla markaasina uu qayb ka yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Odawa Yuusuf Raage ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Yuusuf Ismaal Dhuumaal iyo saraakiisha ciidanka ee dowlad goboleedka Jubbaland soo dhaweynta kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Yuusuf Ismaal Dhuumaal wuxuuna ka warbixiyay socdaalka wafdigani wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed taliyaha qaybta 43aad taliyaha booliiska dowlad goboleedka Jubbaland taliyihii hore qaybta 43aad wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa maanta sharaf weyn noo ah dowlad goboleedka Jubbaland inay booqasho noogu yimaadaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed mudane wasiir iyo mudane taliya soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiini deegaankiini ciidamadiini runtii waxaan aad ugu faraxsanahay booqashada aad nagu soo gaarteen adinkoo bariyahanba socodyo kala duwan ku jiray insha Allah wixii waraysi oo dambe waan iswaraysan doonaa marka billahi kariim waxaan rajaynaynaa in sida hadda maxaan ku raahdaa ummadda Soomaaliyeed abaabulka iyo kicinta iyo dagaalka iyo horumarka ka socdo baan anaguna qayb ka nahay waxa hortaada fadhiyo waa saraakiishaadii xildhibaanadaadii wasiiradaadii waxaan rajaynaynaa inaan maxaan ku raahdaa dalku waa hal dal oo Soomaaliya la yiraahdo oo federaal ah oo isku dan ah oo isku diin ah oo isku dhaqan ah oo isku dawlad ah marka wax la kala saar ma waxa timaadan dalkiini deegaankiini iyo ciidamadiini iyo aad mas'uulka iyo madaxda u ahaydeen soo dhawaada insha Allah intaasan raba inaan ku soo gabagabeeyo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay waxaan nimid magaalada Kismaayo waxaan u nimid aniga iyo wafdigaygaba in aan soo indheeyno xaaladda guud ee deegaanka maadaama dalka uu ku jiro dagaal lagula jiro khawaarijta deegaankan uu muhiim ugu yahay la dagaalanka khawaarijta waxaan u nimid in xaaladaha iyo duruufaha ka jirana aan aragno shaqooyinka aan qaban karna oo ka dawlad ahaan iyo yaani dowlad goboleed ahaan aan dhameystiri karnana aan ka tashano haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in deegaanadani ay ka xoroobi doonaan shabaab annagoo iskaashanayno shacabkeena iyo dowlad ahaanba gacmaha is haysano haddii Ilaahay yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo tiimka halkaan ugu soo dhaweeyay warkeena gadaal ugu dhiman yahay haddii Ilaahay yiraahdo guud ahaan waa u mahadcelinaynaa dowladda Jubbaland iyo maamulkeeda iyo saraakiisha ciidamada ee halkaan xaqiiqdii muddada dheer nagu sugayay maanta intaan safar ku soo jirnay waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo buqco walba oo Soomaali kamid ah in cadawga laga xoreyn doono lagana tirtiri doono haddii Ilaahay yiraahdo Khadar Iimaan Dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.